danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Koonfur Afrika mudane Maxamed Sheekh Isaaq ayaa booqasho ku tagay xabsiga Landela oo laga dhoofiyo dadka sharci la'aanta ku jooga wadankani Koonfur Afrika. Safiirka ayaa kulan la qaatay 8 dhalinyaro ah oo in muddo ah ku xirnayd xabsigaasi, waxa uuna ka dhageystay baahiyaha ay qabaan isagoona u ballan qaaday inuu kala shaqayn doono sidii ay xorriyadooda u heli lahaayeen. safiirka ayaa socdaalka booqashada ah waxaa ku weheliyay xogayaha koobaad ee safaaradda Soomaaliya mudane Yusuf Cumar Axmed, gudoomiyaha jaaliyadda Koonfur Afrika mudane Maxamed Cumar Warsame Talyaani. booqashada uu safiirka ku tagay xabsiga Landela ayaa qayb ka ah u kurgelidda xaaladaha kala duwan oo ay ku sugan yihiin dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Koonfur Afrika. ciidamadii aan ugu talagalnay inay shaqo kala qabtaan waxay nagu kaliftay intaan dirno in ayaga kala dhex dejino ay kala ilaaliyaan. yaa ka shaqeynaya waxaan ognahay inay shabaab ka shaqeynayaan, khawaarijtuna ka shaqeynayso. markaan lahayn gabdhaha ku filan kuwa xamar jooga waa markaa haddii ay jiraan ciidan hub haysto oo meel farfadhiya aan wiilasha usoo dirno hubaysan iyo gabdhaha hubaysan. laakiin haddii ay tahay midka guriga fadhiya ee ka qadaynaya ka quraacanaya subaxii yani maaragtay arxalaawayaasha ka tirsan, waxaan rabnaa dee inay shacabkeenu way ogyihiin inay marka waxaynu u baahanahay si guud haddii aynaan nimankaas ay rajada weli inagaga jirto inaan sii wada noolaan karno, idan in badan baynu sii wada noolaan doonaa. laakiin haddaan go-aan gaarno inaynaa wada noolaan karin, guul ama geeri halkaas inay noo taagan tahay hadday gaarto inaguma qaadanayaan maalmo, inaguma qaadanayaan. innaga isu hayna marka waxan Soomaalida ama aan isku dheerayno ama aan isu gaabino waa wax annaga nagu xiran, annaga nagu xiran tahay. anigu waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee aad moodo inaynan xil ka saarnayn dalkan iyo cadowga haysta dad aan la dagaalamayno ee in yar la dagaalamayso bulshada Soomaaliyeed inay dagaalka wada gasho, inaynan isku dheeraynin mushkilada, haynagu dheeraynina. in inagu filan waan ku jirnay daryeel xumo, in inagu filan waan ku jirnay sumcad xumo, qaxooti, qax, mushkilad. meelaha hadda la xoreeyaa dadka isku diraya waa la xoreeyay. in badan oo ka mid ah ciidamadii aan meelo kale iyo shaqooyin kale u dirsan lahayn waxay kala dhex taagan yihiin beelo Soomaaliyeed bay kala ilaalinayaan oo hadda jooga booliis, nabad sugid, military. ciidamadii aan ugu talagalnay inay shaqo kala qabtaan waxay nagu kaliftay intaan dirno in ayaga kala dhex dejino ay kala ilaaliyaan. yaa ka shaqeynaya waxaan ognahay inay shabaab ka shaqeynayaan, khawaarijtuna ka shaqeynayso. dadkeena si sahlan ayaa loo duufsanaya. wacyiga dadka iyo maskaxda ayay haantu salkay ka tolan tahay, wax ka tolmaanay iyo go-aan la qaato. haddaynu shacabka Soomaaliyeed nahay iyo dowladdaba waxaa ilaa ay hadda aan ku guulaysan laanahay inaan kulligeen go-aan qaadano oo nimankaas dhaafino. qaar ka mid ihi dadkeenu way cabsanayaan, waa sax, waa cabsidu way jirtaa. baab bay ka qaadaan, waa u hanjabaan, keen lacagtay dhahaan, cabsidu waa jiraysaa. waxay ku leeyihiin hadda dowladda la rabaa inay si aanan lacag u bixinin, dowladda la rabaa ammaankayga inay sugto. laakiin aniga haddii uu midka jilib joogaa soo waco uu yidhaahdo lacag keen, haddaada keenina waan ku dilayaa, hadda lacagta inaan iska bixiyo waa legitimate, waa hadal gar ah, waa sax. laakiin dee su-aashu waxay tahay keebaa horeeya horta? keebaa horeeya in yani dowladdii la helo iyo in dowladdii oon ammaanka sugin? nin baa waxaa la yidhi malaha geel badan buu lahaa, guurkana waa ka dahay, marka geelaas badan buu keligii dhaqi jiray oo aad buu ugu rafaaday geela. marka waxaa lagu yidhi dee dad badan warguursanayaho geelan keligaa ma dhaqi kartid, waxa weeye waxaad u baahan tahay inaad hesho ubad iyo ilmo kula dhaqa geela.
ayaa u baahan tahay. maxaa jira haddaad ubad dhasho geelan adiga waa ubadkaa kuu dhaqaya keligaa ma ahanaysid. marka adigu wax la wadayba markii dambe waa guursaday. maalintiiba asagoo geel ku maqan waxaa la yidhi wiil baa kuu dhashay. marka habeenkiibuu geeli de markuu soo xareynayay ayuu malaha meeshii ridda uu ka gelinayay geelay midna dhinacaa ka maray midna dhinacaa ka maray dhowr jeer xaggu ka orday marka uu qayliyo wuxuu dhaha war haadheh war kii lalahaa wuu dhashay buu geelay la celiyo. kii lalahaa wuu dhashay muu geelay la celiyo dhahay. dadka qaarkood saas waay waxay rabaan in geelu kii dhashay hadda ula celiyay rabaan. marka war haddaadan adiga diidin oo aadan sacrifice garaynin su-aal meesha waxay ku jirta waxay tahay adeerow diinta islaamka ee ku faraysa inaad ninkaa u hoggaansato maxay tahay oo hantidaada aad ku bixiso inuu adig kugu dilo. okay haddaad lacagta u geyso baabuur buu kusoo xirayaa qarax ilaan dadka kaama yaqaanee adoo hotel fadhiyo kugu qarxinaa adna waad ku dhimanaysa lacagtiina adaa u geeyey. marka miyayna kuu roona inaad dhahdo warbax hub qaado iska celi